Yo guys, waan salaamay dhamaantiin abu meel walba ku joogtaan waan igu walaalkiina min xasan ah idin leh ku soo dhawaada mar kale iyo YouTube channel-kayga dadka cusub tahay waxaan ka codsanayaa inaad subscribe sartid aadan ka hilmaamin inaad taawatid gambalalka saad ula socotid muuqaalada soo socda. maanta waxaan ka sheekeynaynaa dameerkii lagu gaday $10,000 Mareykanka ah. macquul miyay kula tahay in dameerka aad taqaanid in lagu gado $10,000 Mareykanka ah? طبعا waad la yaabaysaa sidee dameer $10,000 Mareykanka ah lagu gadi karaa. bar ila dhageyso qisadan yar adiga ayaad ogaan doontaa sababta lagu gaday dameerka $10,000 Mareykanka ah. waxaa jiray nin heesta hal dameer, halkaas dameer uu heestona wuxuu rabay ama wuxuu damcay inuu iska iibiyo. markaas horta dad aragtid qof wax iska iibinaya ogo qofkaas lacag ayuu u baahan yahay. marka ninkan lacagtu u baahnaa iyo lacagta dameerkaas u goon lahaa ama u goonayo isma lahayn, yacni iskuma dhowa xitaa. marka suuqa ayuu aaday, dameerkii ayuu watay, suuqa ayuu geeyay. markaas wuxuu dhahay dameer ayaan gadayaa, yaa iga gadanaya. markuu waayo qof la hadlaba ama qof soo fiiriya, asigoo muddo meesha iska taagnaa wuxuu hal mar soo jiray dameer ayaan iska gadayaa, waxaana ku rabaa $10,000 Mareykan ah. marka qof walbo maqlay yacni macquul way noqon waayeen, way soo fiiriyeen, ninkii ay soo fiiriyeen iyo dameerkii ay la soo fiiriyeen. waayo dameer noocee waane xitaa $10,000 lagu gadayo. qof walba meeshii isku imaadeen marka ayagoo yaaban, yacni sidee gadi kartaa, yacni noo sheeg bal maxaa u qaas ah ama what is so special yacni oo dameerkan aad $10,000 ku rabtid. dadka ayaa isku imaadeen meesha loo buuxo, yacni oo buuq noqotay. ayaa meesha waxaa soo maray boqor iyo wasiirkiisa ayaa meesha soo maray. marka boqorkii ayaa wasiirka ku amray inuu meesha soo fiiriyo maxaa ka dhacaya. wasiirkii ayaa meesha aaday, wuxuuna soo ogaaday in dameer meesha lagu gadayo, dameerkan lagu rabo $10,000. marka boqorkii ayuu sidaas u sheegay. boqorka naftirkiisa wuu yaabay, yacni sidee. meesha ayuu aaday, ninkii ayay weydiiyeen. marka waxay dhaheen see wax u rabtaa, yacni dameer iyo $10,000 macquul ma ahane wax sheeg maxaa mise yacni dameerkan saas dhan maxaa oo qiimo u yeelay yacni. markaas wuxuu isku soo jaray ninkii dameerkan koraa, wuxuu arkayaa yacni Maka iyo Madiina ayuu arkaya asigoo dameerkaas kor saaran. marka waxaa wasiirkii ayaa wuxuu yacni boqorkii ayaa wuxuu ku amray wasiirkii inuu koro, yacni inuu hubsado camal. wasiirkii ayaa koray. markuu koray ninkii dameerka ayaa wuxuu dhahay yacni ninkii arki waayana wuxuu yahay yacni nin munaafiq ah oo beenaalo ah oo khiyaanoole ah, yacni oo dadka dulmiya. marka ninkii already wuu koray, marka ma dhahi karo Maka ma arki iyo Madiina ma arki. waayo hadduu saas dhaho dadka waxay u qaadanayaan inuu yahay nin beenoole ah ama nin khiyaano badan ama nin dadka dulmiya. markaas wuxuu dhahay wow maasha Allah tabaaraka Allah, Maka waa ujeedaa, waa kaay saan waa Madiinana waa ujeedaa. wuu ku soo degay. marka boqorkii ayuu koray. boqorkiina yacni wuxuu ka cabsaday hadduu dhaho wax uma jeedi in la dhaho yacni wasiirka ayaa ka fiican oo asiga wixii dhan wuu arkay, adiga marka qaa'in loo tahay, dulmi loo tahay, yacni asigana wuxuu dhahay maasha Allah tabaaraka Allah, yacni ma aamini karo inaa indhahayga anoo inta saaran inaa Maka aan u jeedo ama Madiina aan u jeedo. marka saas ayaa dadka hadda meesha joogeen oo suuqa dhan isku imaadeen waxay ku qanceen in ninkii dameerkaas koro inuu arkayo Maka iyo Madiina inuu arkayo. marka waxaa jira dad qaar yacni alifaya waxyaalo yacni oo diinta aan ka tirsanayn balse dadka ka dhacsiinayaan inay diinta ka tirsan tahay. ilaa hadda sheekadaas hadda idin sheekeeyay waxaa jiraan dad qaar yacni isla saas maahan balse qaab u duwan amaba qaab ishabahaya inay dadka wax ka cunaan. marka diinta lagu sheegayo qofka hadduuban ku dhahayn qaala Allahu wa qaala rasuul, taasi diinteena ma ahan, waa mid oo asiga jeebkiisa ka bixiyay. marka I hope yacni qisada hadda idin sheekeeyay waxaa loola jeedo in aad fahamteen. intaan wada kulmi doono muuqaalka sidaan waxaa idinka tagayaa sida iyo nabadgelyo.